Somalia dowladda Abba Mohamed Ziyad Barre loo cadal foorak dumadaagu kaaka abin wacdina iyamihi fiirgu gaadiyat ya wacdina igada may marudisna mal neebahtiye ku gaanihtan dowladda lahaydtuhu neebahtiye siyaasay nibadooda alummataake lahinkike ummata fadhimi itaminki haditan xaalad illugne araxkinihe إنكي ما بنسوقون تلهي إنكي عبارة لدي ولكن منهنا الحالة إنكي كمقدحة إنه أهات اللي كوستنا ستة اللي كوبتنا هتا اللي كباستنا من السياسة نرجع عملتو نبحتي اللي تمهن أساكوي وهو بيريا ساكو إنك تمهمي فنم لك الإثيوبيا دولتكي سوماليا دولتي فني هنغارة كارلو كابي وعدي إثيوبيا دولتكي سوماليا دولت كوغاني كلام بارو كنيه نفرت درساكو كوكيهن توبكيهتان أماني تنيه توهكو لما دولت كوغاني هنكو ستة لكو معدين تعرين سجونة اللهي توبكينو انت ستة لهي تسجونة اللهي لما دولته أمة أمانها في سجونة اللهي إنكيه نكفر دمي إتم لما رسي من معاني ستة لكو اللي أباس من حاجدتي يا بنو أساكو يكين غار وكلا كادو لكلا بيرا يساكو ستة لكو نفنتني التنفير فنك اللي كلمني حاجدها من قد أبلت النبي نكفر دمتها لما دولت كنكهي maalintii arbacadii bishan janvier ahayd 22 ayay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya President Mohamed Ziyad Barre uu soo gabagabeeyay maalintii arbacadii bishan janvier ahayd 22 ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya President Mohamed Ziyad Barre uu soo gabagabeeyay booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku marayay dalkan jamhuuriyadda Djibouti booqashadaasi oo u bilaabantay maalintii axadii bishan maalintii sabtidii bishan janvier ahayd 8 waxaana booqashadaasi ay ahayd booqashadii ka dambaysay shir madaxeedkii ururka IGAD ee uu ka qayb qaatay madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo dhammaan madaxda lixda dal ee ku yaala degmada Afrikada Bari booqashadaasi waxaa lagu soo gabagabeeyay warmurtiyeedka labada dal wadajir ay u soo saareen warmurtiyeedkaasi oo dhammaan madaxda labada dal ay ku soo qaadeen ilaa qaadka labada dal si xoojintiisa arrimaha la xiriira degmada waxa kale oo labada madaxweyne ay cambaareeyeen siyaasadda midabta koorka ee talisku sheega Koonfur Afrika waxa kale oo ay ku baaqeen nabadgelyo ka dhacda arriga bariga dhexe asaaskiisa lagu sameeyay magaalada Djibouti ay isugu yimaadeen madaxweynaha dalka Afrikada Bari sidoo kale waxay nasiib u yeelatay in isla Djibouti ay noqoto xaruntii ururkaasi waxaanu jeclaan lahayn jalla madaxweyne bal inaad faala gaaban naga siisid arrintaas iyada ururku sidoo u dhaqmi doono iyo heshiiskiisa in ururka IGAD maaha wax shalay badcamay saad ogtiin dhowr sanood waa la meermeeriyay kulkii aan arrinta soo dhaxgalay waxaan nidhi bal arrintan in waa kan dhibaatooyin badan la sheegayo biyo la'aan daaq la'aan xanuun biray in bal haddaan la shiki qaba hareeryaha bal adiinku isku daydaan annagu hadda itaalkaygu aanu iska weynin oo kolka waxaanu dhaxan looma xoolo yaray waa inaad arrintaa fulisaan madaxweynayaasha kulkaan casuumad u dirnayna waxaan ugu mahadnaqayaa horta inay gebigooduba raalli ay ka noqdeen oo si wanaagsan u yimaadeen si daacada si furfuran si farcoon وهذا كان مال دقي إن مال دقيستانا كما يدقنا إن هالكا لو جوجيو ماشونا نقطة سيدا دولك قاركود مال لوها ساوو إن وحبك سوبحن وإن وحبك سعنين أنا كدانو جيبوتنا هدين وحك سعنين ما أنا وذكر رولك ما قاعد بلاش مرة بنو إن كل واحد في الأيام إن gudidii intoo la asaasay ka shaqaynaya xafiiskaas
إن ودكتي إن نينكا سكرتير جنرال لو عيني نينكا سو أصلي أهان إثيوبيانا إن أنا كسر ما قبو إنه إثيوبيانا أهان كوش قاين دونه وأنا قبا إنه فوكسيونير هو إيجاد كاش والكيس وياي هذا intaan haynaana ku saasaanu ku wadayna wixii naga dambeeyana saas ku wadi doonaan waa inuu ahaada xor waa inuu isku dumiyaa oo isku duwa wixii asluub laga doonay oo dhan wixii gargaaran siinayna anagu diyaar baan nahay in madaxweynayaasha mantaqadana waxa la doonayaa inay meel joogaanba hamiyad weyn saaraan in hamiyad bay leedahay inuu saxiix bilaash noqdo lama rabo kolka hal fuliyaan leeyahay igaad in danta dalka dadka weeyaa iyadoo aan la eegin madaxweynuhu laga eegin oo loo eegaa hoosta xusbi ahaan shacab ahaan maxaa dhibaatadiisu ay tahay biyaha ama cudurka kolka waxay halkan ka dhigan tahay wax weeyaan meesha lagaga duulo wixii degdeg laguna xisaabiyo xisaab dheer kolka galayso kolka labadaas la isgarab dhigo oo mid bas u kala roonayeen u kala horeeyaan hadan loo kala jeedo waxaan ku soo dhaafayaa horta bal tiigaad sida mudane madaxweyne waxa kale oo Djibouti sanadka nasiib u yeelatay inay ku kulmaan madaxweynayaasha labada dal Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo Itoobiya Mingista Hayle Maryam iyaga oo ka wada hadlay dhibaatada muddada dheer labadaas dal soo dhextaalay fal gaban arrinta naga siin wallahi annagu haddaanu reer Djibouti nahay in فان يفرفرعون كم درين وان سؤالن كرينا سلام بأنك نجا واجبته لبدا مدحوينه سعي قدام ميان مشكلة ذها دحوة الله وشعبوين هنا وقف عيديسك